عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال مeel baa dunida dacaladeeda iga daawanaysaan halkaad iga daawanaysaan waa Xijaas Xuseen XM aniguna waxaan ahay Xijaas Xuseen haddii ku taa markii ugu horeysay please channelka subscribe saar like iyo comment gana ilmaamin maanta waxaan rabaa hees lab magac baxday nabar iyo naxdin oo ay qaadeen kooxdii waayaha cusub yelkadeedii waan rabay inaan ka soo bixiyo reaction yar maalintii ay soo baxday heestan laakiin sabab jir ogeed hawadan ka maqnaa waxaan rabaa bal ra'yigayga iyo fikirkayga bal inaan ka dhiibto heesta dadkii horta waa arkay YouTube-kii iyo social media iyo Facebook-kii dhaxyaacisay dislike-teedii iyo waxeeda gadaalan ka hadli doonaa taas gadaalan uga darsan doonaa bal heesti noo bilaaba iyo qaabkii ay ku bilaabanayso noo bilaaba dafa no daha no na dafa wayaha cusub naaqudayaashiyo waxay ku bilaabataba noo dhaha noo na dhaafa intaan igu soo celi na dafa wayaha cusub naaqudayaashiyo nacam laha warkooda naaqudayaashiyo nacamlaha warkooda wixii nabadu haysto naxlibaad ku nooshaa ruuxii run u haysto naxli baad ku noosha naara mooye tala uma nuglaadaan manaanaxa kuwaano in la naaro mooyaane tala uma nuglaadaan ilaahan baa wax naara bil-aadan wax ma naaro dadkoodu ma naxariistaa nabar iyo naxdin nacnac badanaa nabar iyo naxdin naacnaac badana axle iyo nusqan naadi ku nooli nudugayna gooyaan oyna nuugaan inaba benadooni mayna nololaan jirin nudugeeni gooyaana weyna nugaan inaba ma doonayno nololaan jirin nabar iyo naxdin nacnac badanaa naxle iyo nusqan naadi ku nooli nudugayna gooyaan oyna nuugaan inaba benadooni mayna nololaan jirin dadkan horta wada madmadoobaaday meesha fadhiintay kasoo aruuriyeen horta dad madmadooba ugu jira meeshaan oo waraqad isku dhidhiiba waraqad iska kala xoogayo ula watoos naablayaashiiyo nacablaha warkooda marka madaxdii wadankii hogaaminaysay miyay ula jeedaan caay horta ma caaytamayaan mase waxbay mucaaradayaan oo waxbay dhaliilayaan oo waxbay sheegayaan anuna caaytamayaan oo haystaaba dadkan wax sheegid inta iska dhaaftid inay caaytamayaan ayaaba u haystaabaanu sinkiyo ruuxii nololu haysto soomaalida hanaafay nasiibsa mooye nimca kama sugayno ku nasiibsan mooye maxay tiri mooye nimca kama sugayno ku nasiibsan mooye nimco kama sugayno horta waxaa yidhi magaranaysaa nabigeena sallallahu alayhi wasallam dadkii inta madax doorta ee aan adeecin way kala firdhadaan way kala yaacaan marka madaxa baad doorateen idiin dhaaratay idiin shaqaynaysa waad mucaaradi kartaan oo mucaaradi maxaafid bay leedahay laakiin inaad caytantaan way anigoo dal islaamiyeed oo dad dhisteen oo joogo haddana degan dalkiini dadkii idiin hogaaminaya caydaan dee dimuqraadiyadda nooca maaha dimuqraadiya waddanka waad joogtiin waddan dimuqraadiya waad joogtiin bal dad madaxdooda caayaya soo saara mana allaha nasiibo dalka ugu nagaada nabar iyo naxdin nacnac badanaa naxle iyo nusqan naadi ku nooli nudugayna gooyaan oyna nuugaan inaba benadooni mayna nololaan jirin nabar iyo naxdin nacnac
nacnaac badana ma laba gabdhoodoo hebel ay nacnaac badanaa hebel nacnaac badanaa maqlin jiray yab nudugayna gooyaan ayna nuugaan nudugayna gooyaan nosayna nuugaan af ingiriiska ku imaadeen soo socota haddana no dhaha no na dhaafa maya maad iska tirahdaan maxaa no kolay waxun baad caayaysaan naba iyo nolol naq badanaa nabad nabar iyo naxdin mase nabad iyo nolol iigu soo celin taaka naba iyo nolol naq badan nabad iyo nolol naqnaq badana gabadhina maxay lehed nabar iyo naxdin naac badana bal aqligiina inta kaashataan cilmigiina caqliga kaasha cilmiga ha laguu dhigaa la yidhi hadda maad caaytamaysaan mase fariin baad gudbinaysaan waxbaad dhaliilaysaan horta anugu ilaa hadda wax ma fahmine aqligiigaa yarkii waxba kumaan garan weli inaad caaytamaysaan iyo inaad fariin gudbinaysaan waan kala garan lahay wallaahi bilaahi haddana waxaa la mucaarada ma garanaysaan waddan dhisan oo lugihiisii iyo dhidibadiisii xusulladiisii inta cayilay kaaliska argada sida wadamada ku nooshiyiin oo kaleeto laakiin waddan asagiiba lug jiiska ah oo kakabanaya iminka la sharoteynayo la alxamaya aad leedaha waan dowladdii waxaas ku kicinayaa shacabkii bal maxaad ka faa-iideysaa adna waddan dhisan baad dhex fadhisaa oo dadkoodii dhisteen yab nabadba ma hayne away noloshoon nerbe xanuunsheen matadii nugled nabnabdooda badane yaa loo noqon nabnabdooda badane yaa loo noqon nuxnuxdooda badan yaan loo noqon yaan dib loo dooran jaa waxay tiri naablayaasha iyo naarqu anu sibcan xoogaa ma u fahmin ma garanaysaa inaan ku celiyo naablayaasha iyo naarquudayaasha ka gora waa kaas dadki way naafayeen oo dadki way nolol tireen ya ninki ma hayaala niyad jabin in noo nacamlayena waa nacasnimo ya naruurana mala lehe naruurana ma lahane hala wada naco nabar iyo naxdin nuxur buuran male way ku nabayaan bis waa intasaa ku dhameeyey kolley fikirkaygaan ka dhiimanayaa iyo diskilaagtii iyo sababtii horta soomaali maxamed meel walba duniyada daclada ku jiro horta waan arkay gebigood haddaan yareenin 90% diskilaag ay saareen waa 10 waxaan laagta u saaray haddaan aqligayga kaashado dee waxaasoo soomaaliyana nabadii nolol meelba kuma oga waxaasoo soomaaliya waa la jeclaa markiina hore waayaha cusub heesaad qaadan jirteen raab baad qaadan jirteen waxbaad dhisi jirteen dad baad hanuunin jirteen dad baad wax u sheegi jirteen laakiin hadda jaa waad dhaafteen meedamaashiini bad baad gasheen xuduudaad jirin baad ku dhex dhacdeen marka dadkii intaas idiin nacayn marka micnaheedu maaha haddii ummadooda nacday in nabadii nolol dadku wada gadatay nabadii nolol ina dadku wada iibsatay ma aha micnaheedu waa laydin nacay keli waa laydin jeclaa dee madaa laydin jeclaana dee micnaheedu maaha in adikana iibsateen haddii laydin nacana maaha dadkii kasoo horjeeda inayna iibsadeen waa laydin nacay diskalaagta waad arkaysaan sabab intaas aad ku filanba dee kolley waad qarsateen dee sii marisa unba allaha og dee 300-400 gaartane waxunba adikaa qarsade waxaad qarsataan waa ku qurunsadaan baa layidhi marka intasaa uga baxayaa
intaan ku kulmi doono reaction noocan kale waxaan kaga tagayaa sidaasi nabadgelyo. Haddaad ka heshay share garee barnaamijka, like, comment iyo channelkan subscribe saar. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.